maalinba maalinta ka dambaysa waxaa soo kordhaya dhismayaal aad u dhaadheer. Dhismayaashaasi waxay ku kordhin karaan meesha ay ku yaalaan qurux, dhaqaale iyo sumcad. Waxaan maanta daawanaa dhismayaasha caalamka ugu dhaadheer. asalaamu calaykum, kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada channelka MMS for Soomaali oo ka daawataan sheekooyin waaqici iyo weliba mawaadiic cajiiba. haddaad ka mid tahay dadka jecel muuqaalada noocaas oo kale fadlan ha iloobin inaad soo biirto channelka oo subscribe saarto gambaleelkana aad furato si ay kugu yimaadaan muuqaalada markaan soo gelino una noqoto qofka ugu horeeya daawada. aynu bilowna muuqaalka maanta. Burj Al Khalifa. Burj Al Khalifa waxa uu ku yaalaa magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka. Burj Al Khalifa waxaa la bilaabay dhisitaankiisa la bilaabay 2004 January waxaana la dhameystiray 1 Oktoobar 2009. waxaa si rasmi ah dhismahan loo furay 4 January 2010 waxaana lacagta lagu dhisay dhismahan ay gaarsiisneyd 1.5 bilyan oo doolarka Mareykanka. haddaba dhismaha Burj Al Khalifa waxaa lagu tiriyaa inuu yahay dhismaha ugu dheer caalamka. dhismaha Burj Al Khalifa wuxuu ku guuleystay abaalmarino badan oo kala duwan oo ay ka mid tahay dhismaha ugu dabaqyada badan dabiqdiisa oo gaadhay 163 dabaq. Shanghai Tower. Shanghai Tower waa dhismo ku yaala dalka China. dhismahan waxaa la bilaabay 29 November 2008 waxaa kaloo la dhameystiray 6 September 2015. dhismahan waxa uu ka kooban yahay 163 dabaq. 5 dabaq waa underground halka 130 kalena ay ka sareeyaan dhulka. Towerka saacadda Maka. Towerka saacadda Maka waxaa la bilaabay dhisitaankiisa 2004 waxaana la dhameystiray 2011. si rasmi ah waxaa loo furay dhismahan 2011. haddaba lacagta ku baxday dhisitaanka Towerka saacadda Maka waxay gaarsiisneyd 15 milyan oo doolarka Mareykanka. waxa uu ka kooban yahay Towerka saacadda Maka 120 dabaq. Bingham Finance Center. Bingham Finance Center waxa uu dhererkiisu gaadhayaa 555 mitir. waxaa la bilaabay dhismahan 2010 waxaana la dhameystiray 2017. dhismahan lacagta ku baxday waxay gaadhaysay 1.5 bilyan oo doolarka Mareykanka. dhismahan waxa uu ka kooban yahay 120 dabaq, 5 dabaq oo dhulka hoostiisa iyo 115 dabaq oo dhulka ka sareeya. Lotte World Tower. dhismahan waxaa labsees kala dhigay 2009 May waxaana la bilaabay dhisidiisa February 1 2011. dhismahan wuxuu dhameystirmay December 22 2016. sidoo kale dhismahan waxaa si rasmi ah loo furay April 3 2017. dhismahan waxa uu ka kooban yahay 123 dabaq oo dhulka ka sareeya iyo 6 dabaq oo dhulka ka hooseeya. kuwaas waxay ahaayeen 5 dhisme ee ugu dhaadheer caalamka. haatanna waxaan soo gaarnay guntiga gabagabadii muuqaalka maanta. haddaad ka heshay ood ku raaxaysatay daawashada muuqaalkan ha iloobin inaad like saarta fiidiyowga, asxaabtaada inaad la sii wadaagto. intii fiidiyoo kale ku kulmana khayr badan baan idiin rajaynayaa. ciid mubaarak.